marunbaad ka bogsataa dhaawac jirahaanadoo ku soo gaadhay marunbaa lagaa baantaa nabar ku soo gaadhay oo aad ka kacdaa ise dhaawaca eray kuu geystaa wuxuu qasaa walaagabi ahaanba noloshaada oo uu saamayn ku reebaa jiraalkii ruux ma canaanteen haddaan sida wax u ogahay waan ka qoomameeyaa ogaalka qodobkan ka hor dadka aan canaantay waan hubaa kolkaad muuqaalkan idlaysay inaad ruux dambe canaanan doonin hadalka canaanta ahi wuu ina wajiqiyaa haddii ay ahaan lahayd canaan inagaga timid macallimiinteenna mid inagaga timid waalidkeenna asxaabteenna mulkiilayaasha aynu u shaqayno amase faalo shucuuraysan oo ka soo baxday jacayladeenna xillidoodiina dhex tiilay soo dhawaada saaxiibayaal magacaygu waa guuleedsahay waxaan degalka ku soo gudbiyaa afkaartan oo toolmoon iyo sheekooyin dheefsiiya waayo aragnimo nololeed oo aynaan sinaba ku helneen haddaad nagu soo biirto waan ku soo dhoweyn lahayn isbuuc kastana waxaad naga heli lahayd 2-3 muuqaal oo aad wax ka khaladku kaa galay intuu doonaba ha leekaadee cidna kaama aqbalaysa inaad canaanato cidna kaama aqbalayso xitaa ubadkaaga waa runtay maxaa yeelay waxay ku xambaaraysaa qofka kale inuu dhufays galo oo uu difaaco gafafkiisa si uu u badbaadiyo sharafkiisa waxaad helaysaa kumanaan tusaale oo ku baahsan kutubta taariikhda oo caddaynaya waxtarla'aanta canaanta bal haynu ka soo qaadanna murankii dhex maray Roosevelt oo ahaa madaxweynihii Mareykanka iyo gacanyarihiisii Taafid sanadu markii ay ahayd 1908 Roosevelt ayaa u baxay Afrika si uu u soo ugaarsado libaaxiyo waxaana uu wakiishay howlihii dowladda ku-xigeenkiisii lagu magacaabi jiray Taafid Roosevelt ayaa soo laabtay waqti loo diyaar garoobayay inay qabsoonto doorashadii madaxtooyadu wuxuu ku warheelay Roosevelt inuu ku-xigeenkiisii qiyaameeyay intii uu maqlaa xisbigii Roosevelt madaxda ka ahaana uu dhulka la galay sumcadaha xisbigii Roosevelt madaxda ka ahaa sumcad ahaan dhulka ayuu galay intii uu ka maqnaa Roosevelt aad buu uga cadhooday arrinka uu ku dhaqaaqay gacanyarihiisu kadib si daran ayuu canaantay gacanyarihiisii maxaa yeelay dhicista uu xisbigoodu doorashada ku dhacay wuxuu u aaneynayay in gacanyarihiisa Taafid uu ka dambeeyey sidaas laajigeed ayuu sida daran ugu canaantay gacanyarihiisa Taafid waxaan uga socdaa soo guurinta sheekadan Taafid ma garowsaday canaantii loo jeediyey ugu yaraan asagu ma canaantay naftiisa waa maya isagoo ilmeynaya ayuu ku jawaabay anigu waxaan wax u sameeyey sidii aan islahaa way saxsan tahay kol laba ismaan lahayn waxbaad xumaynaysaa waxaynu aragnaa inaan Taafid garowsan canaantii oo qaadan jeerkaasina uu istifaacid galay si aan loo jebin qabka uu weeba ku abuuray maxaa yeelay qofka la canaananaya wuxuu dareemayaa in la liidayo amase sharafkiisa wax loo dhimayo kolkaa kaama garowsan doono qofna canaanaad u soo jeedisay xitaa wiilkaaga amase shaqaalahaaga awoodda daran ha ahaadee qofkaad canaanato haddii uu kaa habrado oo kaa aamuso taa macnaheedu maaha inuu kaa garowsaday canaantii ee gudaha ayuu ka holcayaa oo ka gubaysaa canaantaadaasi